Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan waa idin wada salaamay asxaabta ku xiran YouTube channelkeena ku soo dhawaada. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay walaalo fara badan ayaa waxay iga soo yarcodsadeen sida codka aan u editing gareeyo. Xaqiiqatan markii shayga la sameeyo kadibna wuxuu u baahan yahay editing. Wax walbo aad arkayso ma ahan sidiisa saxda ah waayo waxaa ka dambeeyo ama waxa loo adeegsaday waa effect. Haddii aad haysato xitaa microphone-ka ugu qaalisan waxaad u baahan tahay inaad codkaaga aad effect aad u adeegsato. Sidaan wada ognahayna effectiga iyo saameynta way ku kala duwan yihiin dadka codadkooda. Waayo waxaa jirta aniga hadda shakhsi ahaanteed effectiga aan adeegsanayo laga yaab in uusan adiga kugu yar shaqaynaynin, uusan kugu wanaagsanayn. Waayo qof walba wuxuu jecel yahay sida adiga markaas uu doonayo inuu noqdo codkiisa. Marka muuqaalkani gaaba waxaa rabaa farsamada ugu fudud ee loo adeegsado codadka. Sidaan wada ognahay dhammaanteenaba waxaan wada ognahay in muuqaalka uu ka muhiimsan yahay codka. Waayo muuqaal quality-giisa liita waa daawan kartaa, codkiisana wanaagsan. Laakiin muuqaal quality-giisa aad iyo aad u sareeya haddana codkiisa aanan wanaagsanayn sida aad ku daawato way adag tahay. Waayo dadka inta badan waxay dhageystaan cod aad iyo aad u dagan aan wax buuq aan ku jirin. Marka xaqiiqatan markaan haddeertaan in kilibkan yar aan idiin soo duuwayo codkayga waa sida tan. Markaanan wax effect aan soo saarin tan haddeertaan waxaa ii yara daaran fan taasna waxuu adeegsanayaa sidaad u jeedo haddeertaan qolkan waa yara cub. Haddii qolka uu cuban yahay aysan leerba meel aysan ka soo galayn waxaad u baahan tahay wax ku yara qaboojiyo xoogaa yar dhididka faraha badan kaa ilaaliya. Sidaa haddeertaan u jeedo marka codka haddeertaan sida tooska aan ku duuwayo haddii sida tooska aan kusoo day lahay oo wax effect aan soo marin lahayn xaqiiqatan videogan daawashadiisa aad iyo aad ayay kuugu cuslaan lahayd. Marka muuqaalkan kooban waxaan rabaa in aan idinkula wadaago farsamada ugu fudud ee loo adeegsado marka aad cod ku habeynayso Adobe Audition. Waayo aniga wax kale maba adeegsado waxaan kaliya aan adeegsadaa software-ka Adobe Audition. Horeyna muuqaal waan ugu sameeyay haddeertan waxaan kula wadaagi doonaa farsamada ugu fudud ee aan u adeegsado markaan codadkayga aan haweenayo. Marka ku soo dhawaada. Ugu horeyn haddeertan waxaan soo furanaynaa software-keena Adobe Audition. Marka haddeertan sidaad u yara jeedo markaan soo yara furno software-keena Adobe Audition waa sida tan interface-kiisa. Ugu horeyn marka waxaan yara sameynaynaa waxay tahay in aan recording aan dhahno. Waayo dadka inta badan waxay yara adeegsadaan Audacity iyo Adobe Audition. Insha Allah Audacity waan ka soo sameyn doonaa muuqaal. Haddeertan waa Adobe Audition. Ugu horeyn marka button-kani recording-ka ayaan taabanayaa si aan cod ugu yara duubo. Kadib marka waxaan leenahay recording sida u jeedo markaan file name-ka ayuu ka codsanaya file-kan magacaad u bixin leed waxaan leenahay codayn. Marka sample rate-ka aan adeegsado 48,000 Hz. Channels-ka waxaan adeegsado waa stereo. Ugu horeyn marka intaan markaan sameyno kadib marka waxaan leenahay okay. Haddeertaan marka sidaad ugu jeedaan si toos ah ayuu codka igu yar duubaya Adobe Audition-ka. Sidaa haddeertaan u jeedo codkani levelkiisa waa cod xoogaa yara liita. Waxay u yara baahan tahay sidaad haddeertaan aad ugu jeedo in cod wanaagsan aad ku yara duubto. Levelka maadaama uu gaaban yahay sare ayaan u qaadin doonaa. Marka codkan recording-kiisa intaan ayaan ku joojin doonaa. Marka ugu horeyso haddeertaan pause aan dhahno. Kadib marka aan isla dhageysano codka quality-giisa. Haddeertaan marka sidaad ugu jeedaan si toos ah ayuu codka igu yar duubaya Adobe Audition-ka. Mar alaale markaan sidaan aan Adobe Audition-ka aan u soo geliyo codka kaliya waxaan maraa steps yar. Ugu horeyn marka codka ayaan select saaranaynaa sidaas ayaan laba jeer click ku siinayaa. Kadib marka waxaan furaynaa preset. Waayo haddii aadan preset aadan samaysanin mar walba waxaa qasab kugu ah effectidii shalay aad saartay inaad haddan mar labaad aad ku soo celiso. Laakiin preset-ka waa shay aad hal mar aad samaysanayso mar walba aad soo furanaysona uma baahnid inaad waxyaalo fara badan aad ka saxdo. Marka preset ayaan sameyn doonaa. Ugu horeyn marka meeshaan effect racks sidaad ugu jeedo meeshaan haddaadan aysan kaaga soo muuqan kaliya waxaad tegaysaa dhanka iyo window. Markaad window aad tagto kadib marka meeshaan ayaa waxaad ka raadinaysaa effect rack. Kadib marka meeshaan marka level 1-ka ama button-ka ugu horeeya ayaan furaynaa click-tiisa. Ugu horeyn marka aniga effect-ga ugu horeeya aan adeegsado aan codkayga aan u adeegsado waxay tahay Parametric Equalizer. Wuxuu ii sameynayaa kaas in codka xoogaa bass oo igu yara daro haddii uu cod treble uu yahay mid uusan waxba aan bass aan wadinin hadduu yahay in uu bass xoogaa yar oo igu yara daro. Marka waxaan ka sii yara tegaynaa filter and EQ kadibna waxaan ka sii dooranaynaa Parametric Equalizer. Sidaa u jeedo boxkan markuu kuu soo yara bandhigo wax kale kama dooranaysid kaliya marka waxaan tegaynaa diff
waxaan furaynaa qaybtan iyo presetka markaan presetkan aan furno kadib waxaan kasii yara doortaa mar walba focal enhancerka markii codka aan sidaan aan yara saarno kadibna codka hadeertaan play hadeertaan marka sidaad ugu jeedaan si toos ah codka hadeertaan igu yara duubaya Adobe Audition sida hadeertaan u jeedo codkani levelkiisa waa cod xoogaa yara liita waxay u baahan tahay marka intaas aan sameyno ugu hore marka waxaan LB-gan ayaan saaranaynaa liftiga markaan yara saarano intaan kaliya markaan yara sameeyo codkeyga qaab qurux badan ayuu igu sameynayaa waayo aniga hadeertaan haddii aan sameeyo layniskani mid ka mid ah haddii aan sare aan u qaado codka xoogaa yar wuxuu u badanayaa dhanka iyo baska haddii qaybta hoose aan yara keeno leveladani mid ka mid ah codka wuxuu igaga yara dhigayaa mid treble ah oo xoogaa yar aan wax base aanan lahayn marka intaa markaa sameyso effectiga ugu horeysa aan yara sameysanay waa baromatic equalizer marka effectiga labaad aan codkeyga aan inta badan u adeegsado waxa weeye multiband and compressor waayo kaasi wuxuu ii sameynayaa in codka sare oo igu qaado level fiicanna uu yara siiyo marka ugu hore marka waxaan tegaynaa level 2gii ayaan tegaynaa kadibna waxaan kasii dooranaynaa amplitude and compression kadibna waxaan kasii dooranaynaa multiband markaan multiband aan ka doorano sidaa hadeertaan u jeedo multiband sidaan ayaa noogala dooray marka ugu hore marka leveladani waxbaha isku jahwareeran leveladani inta badan marka gainkan ayaa uga muhiimsan gainkan ayaa ugu yara muhiimsan waayo inta badan dadka waxay yara adeegsadaan oo youtuberada minus 3 dB minus 6 dB minus 0.1 dB kaas ayaa ugu sareeyo minus 3 iyo minus 6 waa codadka kuwa ugu wanaagsan ayuu ka yara mid yahay levelada waayo minus 3 minus dB waxaa laga wadaa marka meeshan sidaa ujeedo Adobe Auditionka qaybtan mastarad ayuu leeyahay marka codka haddii minus 3 gainka aad minus 3 dB aad ka dhigto codka minus 3 dB ma dhaafayo laakiin haddii minus 0.1 aad ka dhigto codka zaa'id ayuu noqonayaa cod la dhegeysan karana ma naqanayo marka meeshan ayaa waxaan kala yara dhigaynaa minus 3 dB adiga waa vibratekaaga haddaad rabto minus 6 waad ka dhigan kartaa aniga hadeertaan minus 3 dB ayaan ka yara dhiganaynaa kadib marka hadeertaan isla dhegeysano markaan effectiga aan saarnay si toos ah ayuu codka igu yara duubayaa Adobe Auditionka sidaa hadeertaan ujeedo codkani marka hadeertaan sidaa ujeedo markiisa hore haddaan effectiga aan ka qaado buttonkan keliya waa effectiga inaad ka qaado ugu jeedaan si toos ah ayuu codka igu yara duubayaa Adobe Auditionka sidaa hadeertaan effectiga codkani levelkiisa waa cod xoogaa yar liita oo xoogaa yar u yara dhexeeyo markaan intaan aan sameeyo hadeertaan codkeyga ayaan sare ku qaaday basen waan ku yara daray laakiin waxaa dhiman farsamo kale aan u adeegsado inaan noiseka ama buuqa yar aan kaga saaro taas oo ah plugins aan hadda ka hor aan siiyey markaan 1k subscribers aan gaarnay group telegramka ayaad ka helaysaa cashirna waan kay soo yara sameeyey marka ugu hore marka waxaan tegaynaa qaybtan ayaan furaynaa buttonka saddexaad ayaan furaynaa kadibna VS3 kadibna waxaan kasii dooranaynaa restoration kadibna waxaan leenahay waves kadib marka waxaan kasii dooranaynaa stereo waayo codkayga waa laba level stereo ayaan dooranaynaa markaan stereo aan sidaan ku doorto waa NS1 waxaa inta badan loo adeegsadaa in codkaaga uu shucaca uu ka bixiyo ama buuqa marka asaga ayaan geysanaynaa kadib marka intaan markaan sameyno intaan aan yara sameyno ugu hore marka intaadan apply dhihin process interfilekan sidaa ujeedo waa gudaha wax walba ku jiro wuu saameynayaa tusaalaan laba cod ayaa ku kala duubtay waxaa rabtaa laba effect inaad ku kala adeegsato waa meeshan waa inaad ka qaadaa interfile aad doorataa selection only meesha aad doorato kaliya inuu effectiga kuu saaro laakiin haddii interfilekan uu kuu yahay micnaha waxay ka dhigan tahay in gebi ahaanba wax walba cod ku jiro intaan documentigan yar furan wax walba ku yaro jiro in uu kaa saameyn doono effectigadan hadeertan aad saartay meeshan sida u jeedo dry iyo wet xoogaa yar cod qalalan iyo cod xoogaa yar qoyan ayuu ka yar wadaa marka xoogaa yar codka maadaama effectigadan ay full ku yihiin xoogaa yar ayaan ka yareynaynaa waxaan leenahay 95 adiga 90 xoogaa yar intaas ayaan ku yar dhaafinaynaa kadib marka presetkan aan samaystay intaan apply aan dhihin ugu horeyn marka waa inaan iska fiiriyaa in aan save aan dhaho waayo marka ugu horeysa waxaan leenahay boxkaasi saveka ayaan taabanayaa kadib magac u baxsa ayuu leeyahay waxaa leeyahay Zack Codayn kadib marka waxaa leeyahay okay hadeertaan effectiyadan waa lii save gareeyay kaliya marka walbo aan u baahdo waxaan tegayaa qaybtan iyo presetka ayaan furayaa kadibna Zack iyo Codayn ayaan qaybta hoose ka fiirinayaa sidaa ujeed waa kana Zack Codayn
mar walba aan codka aan rabo inaan hagaajiyo asaga ayaan soo furanaya kadibna waxaan leeyahay apply. Marka haddeertaan apply ayaan yara leenahay. Marka sidaa u jeedo haddeertaan codka level fiican ayaa nogala daray. Marka haddeertaan sidaad u jeedo codka level wanaagsan ayaa nogala daray. Marka haddeertaan isla dhageysano. Marka sidaad ugu jeedaan si toos ah ayuu codka igu yar duubaya Adobe Audition-ka. Marka waxaan filayaa inaad fahanteen farsamada aan codka aan u adeegsado. Kaliya waa intaan kaliya ayaan u adeegsadaa, wax effect kale aan u adeegsado ma jirto. Marka waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkani gaaban aad ka wada faa'iideen. Fadlan marka haddii ay tahay booqashadaad kuugu horeysay, fadlan subscribe saar, furo calaamada gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walba aan soo gelino. Haddii aad videogan ka faa'iiday, la garee lana wadaagan asxaabtaada muuqaalkan si ayagana uga yara faa'iidaystaan. Inta badan channelkan waxaan uga hadlaa arrimaha multimedia. Ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. oo inoo muuqaal kale guuleysta.